Welcome back. Muuqaal cusub ayaan idin wadaa maanta. Muuqaalkan waxaa rabaa inaan wax yar ka taabto Sweetcoin. Sidaan wada ognahayba maalmahan waxaa aad u soo batay dadka isticmaala Sweetcoin, gaar ahaan dadka Soomaalida. Su'aasha taagana waxay tahay, lacag ma laga samayn karaa application-kan? Jawaabtu waa haa. Laakiin waxaa jira shuruudo aad u adag. Haddii aad soo buuxiso shuruudahaas, waad ku guuleysan kartaa inaad lacag ka samayso barnaamijkan. Marka barnaamijkan wuxuu xisaabin doonaa inta talaabo aad qaado. Kunkii talaabo aad qaado wuxuu kugu bedeli doonaa 1 Sweetcoin. Sidoo kale haddii aad qof u dirto invite, aad u koobiso linkaas, qofka kale uu la soo dago asagana meesha waxaad ka heli kartaa 5 Sweetcoins oo free ah. Shuruudaha lagaaga baahan yahay marka aad tahay application-kan qof isticmaala waxaa kaloo ka mid ah inaad u dirto 30 qofood oo aad ku invite gareyso si ayagana u soo degsadaan ee u soo kacsan barnaamijkan. Waxaa jira dadka qaar haysta tiro aad u badan oo Sweetcoins ah. Coinskaas waxba uma tarayaan maxaa yeelay ma haystaan ama ma ahan influencer. Marka qofka sidoo u noqon karaa influencer. Influencerka wax kale ma ahan invite-kii aad samaysay linkigaaga haddii ay soo raacaan 30 qof ama ka badan waad heli kartaa. Marka influencer qaybtaas way ku furmeen. Dadka linkigaaga soo raacaya mar walba ay sii bataan, lacagta aad ka samayn kartana way sii badan kartaa. Mar walba waxay ku xiran tahay linkigii aad samaysay invitation-kiisa inay soo raacaan dad aad u badan. Influencer-ka wuxuu ka caawinayaa dhanka lacagta. Linkigaaga ay isticmaalaan dad badan markaas waad samayn kartaa. Laakiin haddii aad dhahdo qof walba linkigan qaado, la soo deg application-ka, adigana lacag waa ka samayn kartaa, hadalkaas ma ahan mid jira. Waayo qof walba wax kama samayn karo. Laakiin haddii aad leedahay bulsho aad u badan oo linkigaaga ay soo raaci karaan intaasoo dhowr oo qof ah, waa macquul. Marka application-kan inaad lacag ka samayso kaliya kuma xirna socodkaas, talaabooyinka aad qaadaysid, energy-ga aad bixinaysid. Laakiin haddii aad leedahay bulsho aad u tiro badan oo linkigaaga isticmaalaya, waa suurtagal markaas waxaa rabto aad ka samayn kartaa. Waxaa kaloo jirtay dadka qaar inay application-kan ku tilmaamayeen scam, laakiin ilaa iyo hadda midaas lama soo xaqiijin.